wuxuu ahaa safiirkii jamhuuriyadda Soomaaliya ee Sacuudiga iyo Bakistaan lixdamaadkii. wuxuu ka mid ahaa aasaasyaashii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed wuxuuna noqday gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee dhaqdhaqaaqa. waa sheekada mid ka mid ah udub-dhaxaadkii ururkii SNM Mujaahid Xasan Aadan Wadaadiid. xasan waxaa loo aqoonsaday inuu noqdo safiirka Soomaaliya ee Sacuudiga iyo Bakistaan sannadihii lixdamaadkii. inqilaabkii 1969 kadib taariikhda xasan Aadan Wadaadiid waxa weeye haldoorka wuxuu ahaa waddankan maanta aynu haysano Soomaaliland ee nabadgelyada halgankii raggii soo bilaabay ayuu xasan Aadan Wadaadiid taariikhda ka hayo. xasan wuxuu ahaa raggii siyaasiyiinta ahaa ee ururka SNM ku dhawaaqay dibadda kaga dhawaaqay. sidaa haddaba diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin badanba ay la kulmeen waxaa lagu xukumay xabsi dheer oo ay xukuntay jindadii militariga ahayd ee la wareegtay dalka kadib dilkii Cabdirashiid Cali Sharmaake. haddaba markii la sii daayey kadib waxa uu haajiray Riyaad dalka Sacuudi Carabiya halkaas oo isaga iyo diblomaasiyiin iyo siyaasiyiin kale ay ku weyninayeen. intaa kadib waxaa dhacay shirar qarsoodi ah oo ujeeddadoodu ahayd in la tuuro taliskii Maxamed Siyaad Barre. kooxdan waxaa loo yaqaan kooxda Sacuudiga oo hadhow xiriir la samayn doonta kooxo isku mid ah oo fadhigoodu yahay London. horraantii bishii Janaayo 1981 xasan wuxuu hogaaminayay wafdi ka socday kooxda Sacuudiga oo ay ka mid ahaayeen Cabdisalaan Yaasiin, Axmed Ismaaciil Cabdi Duqsi iyo Maxamed Xaashi Cilmi. xasan Aadan Wadaadiid wuxuu ahaa taariikhdiisa markan kuu sheego nin wuxuu ahaa nin ciidaado badan, wuxuu ahaa nin aqoon-yahana, wuxuu ahaa nin siyaasi oo aragti dheer runtii aan muddo ka aqaano, wuxuu ahaa nin halganka iyo xorayntii dalkan lafnabar u ahaa. waxaa kuu caddaynaysa iyadoo aan SNM waddankan cadaaladdarra ay ka jirto oo Somaliland ay maaragtay afweynaysa si loogu taagleeyo oo diyaaradda Hargeysa ka kacday dadka rusheynayso oo xabaal wadareedo laga sameeyey burco ah ogtiin 43 dad dheera laga reebay burco lagu leynayey raggii waxaasoo dhan ka gilgishay. runtii xasan Aadan Wadaadiid iyo ragga ku jira haldoorka ah imika waxay raba kasii nool yihiin inay SNM ku dhawaaqaan. SNM inay ku dhawaaqaanna waxaa haddana ku xigtay inay SNM dalkii xorayso. runtii xasan Aadan Wadaadiid wuxuu ka qayb noqday haddana USC inay maaragtay ay abaabulaan oo xamar ay dagaal ka ridaan Jalaal Caydiid si maaragtay dhibaatada waqooyiga ay u yaraato. raggii runtii taa ka qayb qaatay wadana ka mid ahaa xasan Aadan Wadaadiid wuxuu ahaa nin siyaasi ah, wuxuu ahaa nin roog caddaay ah, nin runtii dalkan tacbadan ragga gashaday geliyey uu ka mid yahay. ragga haldoorka ah ee taariikhda ururka SNM anagoo daan soo gaadhnay taariikhaha runtii haldoorka ah ayaanu ka eeganaaba ka mid ahaa. kulamo badan kadib waxaa lagu midoobay sidii loo dhisan lahaa dhaqdhaqaaqa qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland. xasan wuxuu ahaa hafayeenka rasmiga ah ee ururkan cusub, waxaanu 6 Abriil 1981 ku dhawaaqay furitaankii ururkii SNM.
haddaba intaa kadib markii SNM si guul leh u soo afgembisay taliskii Maxamed Siyaad Barre iyo aasaaskii Jamhuuriyadda Soomaaliland 1991kii xasan wuxuu ka mid ahaa golihii wasiirada ee xukuumaddii Cabdiraxmaan Tuur ee la soo xulay isaga oo ahaa wasiirka dib u dhiska iyo dib u dejinta Soomaaliland. xasan waxaa loo egmaday isku dabaridka soo celinta kumanaanka qaxoontiga ah ee u qaxay dalalka jaarka ah iyo fududeynta dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha dalka ee ay balliqada iyo burburka u geysteen ciidamadii Maxamed Siyaad Barre ee wakhtiga dalka xukumayay.